laba su'aal ay isweydiina dadweynow iyo asxaabta igu xiran ma daqiiqadihii uu suuliga ku jiray baa gabadha lagu afdubtay lagu kufsaday lagu dilo dabqana looga soo tuuray qof musqusha galay ee qubays u galay intaasoo falow dhacayn dhan musqusha miyuu ku jiray koleyba timir balafaa ku jirto waxaa u fakatay wax yar ma aha cadaaladana ilaahay ayaa soo daahirin doona idinkana fikirkiina soo dhiibta muuqaalkana dhamaysta bilow iyo dhammaad si aad u aragtiin waraysiga uu bixiyey gabadheeni qiimaha badneed allah u naxariistay xamdi falkii xumaa qofkii u geystay ama kusoo mushibay hoteelkii ay ku geeriyootay dabaq looga soo tuuray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة موقع عصب ولاشين ورسن عبد الله يوتيوب شانل كايغا داونيسيد وورسن شو فضلا هذا أنا وعصبتها سبسكرايب نوصر هذا هورون ولا جوجو جرت لايك شير كومنت وغاب قاد وحي فكر كذا وأنا كما سنتين سيد قروح ذا بدن عادي لسعتين محمد إبراهيم عثمان وانين كان لو قبت مقالة عدادة أيام مركي وهوريس قلب بيت كيسة جري حمدي أنيقا ياقيي كوبالانس ده هوتيلكا وحينا هيد قاعد سيدة مسقوش أيانا kugalay kabaheeda kadibna waan waaye iyada ayaana dabaq iska soo tuurtay balse ma jirin wax kufsiyo loo geystay ayuu yiri maxamed ibraahim oo ah eedeysanaha lagu soo eedeeyay kiiska xamdi ama ahaa qofkii mashimay ee hoteelka ku casumay wuxuu intaa ku daray waxaan u tagay ninkii hoteelka maamulayay oo aan u sheegay inuu ila raadiyo xamdi kadib markii aan raadis badan u galnay ayuu igu yiri meeshan iskaga carar yaana lagu dalin oo baxso sidaas ayaan ku baxsado yiri oo na cadaado ku tagay bal qof aan dambi lahayn baxsa kasta uu yiraahdo miyuu baxsadaa kulliba sababta oo baxsatay wax un baad ku leedahay haba yaraatee inta waxa raacsan muuqaal video ah oo ma aragtay oo lagu wareysanayo ay soo gudbiyay wiilkan ama ay soo gudbiyeen taliska wareysanaya ee booliiska horta way ku mahadsan yihiin qabashadiisa dadkii ku lug lahaa qaasatan ciidamada amniga ee cadaado bal muuqaalka uu wareysiga ku bixinaya waxyaalo badan iskhilaafeen ay ka dhex muuqdaan bal idinkan la karaba wiilkan ila soo qabtay ma eedeysanaha dhabta ee falka xun u geystay gabadha xamdi ah mise waa qof lagu soo bedelay eedeysanayaashii in la fakisiyay magaca markuu waa sheeg محمد إبراهيم عثمان maxamed إبراهيم عثمان maxamed ibraahim cismaan magaca hooyada حبيب علي ورسم xabiibo cali warsame meeqa jirtaa لا تجري waa ku wada tahay kiiskii gabadha dooqada tuure laga qufay maxaa uga jawaabaysaa وصاب بالله باشا كسر بالله haye أنا وجودا وصلنا قاني صاحبه هنا haye صبح ورجعنا يصاب عليه ما أثرنا هذا haye سوق بكارة سؤال أنا ممكن حافظ شو هي هاي وصف قرني مركي لسه على صعد الجبل ما بلنا haye مركي دول ربع عن حافظ كتجي كارة تجي نال بكارة أو كل مرن أنت جامع جواب بحي haye أو قل مثلا هنا haye كدي بقى كتجنا واحد نتربى يعني haye تربى أنا ممكن حشو يرى أنا وصاحبنا ما يسكن غير شو haye gabadha markaa meesha geeyo hotelka adiga waxbana u lugeyn meesha qolka geeyay qadaar rabaa yiraahdo haye marka wiilkii meesha aniga keena qadar gabadh noogu jiro waxaan xaqo soo qabo haye intuu qadar ku maqnaa aanan musqaas gar hoga qamiita oo taga ku laaday intuu shaqo gar soo qoysanaa dha haye marka soo qoysanaa gabadha kaliya anam tusoo gal haye marka musqaas soo qoysto oo ka soo baxay marka gabadha oo waayo haye sirta laba sir ah min xagga taale min inta taale haye sirtana ko fiiri waa ka waa haye baabka furay banaanka oo baxa waa ka waa haye kadib gabadha lambarkeeda telefoonka soo bixiyay waa waa gabadha lambarka sida lagama qaban haye waxa la gabadha ku ciyaartay iska baxday meelaha qaal ku baxday oo qoway hasa ka dhumatay haye mar labaad kama qoso cutaankeeda oo ku celiyay haye qof ay qabto horaan gabadha shil gashay haye inta kana xabiixi aqmiis isku boobsiiyay waxa gabadha shilka talo ma train qabtay baawar ma dilay gabadha baawar ma dilay haye marka aqmiis gashay waa ku celiyay waxa dhaaniyo gabadha xageeta Allah oo ku imaanada haye waxa gabadha daar shifa la geeyay dalka ka soo dhacday haye isla markii waa degay markaas tagay waxa daab soo galay uga soo galay midkii qaydi keenay qaydi ka qaaday meesha ari waxa aan keenay dhaabixana waa bixana keen waxa gabadh ma joogta gabadha ma soo dhacayda hore ha dhaay nakan waa aadina waa asraacnay isbitaalka marka hormarayno hormuud daafiil horteeda horeeto marka hormarayno waxa dhaanay gabadha aad ugu tooday
دبي الواقع كورة ثانية إسكبه ايه أنا يقول كورة ثانية وكذا قال ايه وأنا إسكبه ايه وكذا وكذا ان gabadhii waxa kale Suudiyaan galay kadib gabadhii aan waayay ودي هو yaa kula soo yani قف اللي تشوف ملا أو ماشي أكتوه ما دقف اللي جوا أكتوه من الأطعمة wadan ada toqgi قبلنا ده جي أنا ماشي جي ada u yaray قال فجرني ada qadasi مقدمة أنا في مقدمة كل كان ماشي على غير على مغنابي naga saay واحد أدو تدوس على فعل oo habeenimo مع toddoba maalmood فعل waaga واقع gabadhaas garas barteen أدو قواد فوق شيخ جديد بكار taariikhdaas barteen raa أدو حسب أسبوع عصب كوري أدو subax barteen لكن أنا ما أعرف مشي كده كهرباء أنا سوق كشقين أي أدو الشيخ جديد xilliga ah xaafadda ka soo waday meeqa saac أنا حابب ذلك مثلي سوق بكارة فوق waa ballantay سوق بكارة أول ما برا بكارة أنا حابب ذلك ما بقام meeqa saac ay kugu timi suuqa bakaaro ده بس صاير حواسك ما هي دخلت ترسلين أول ما kadib maxagee aadeen كده بكارة مال كل مرة من بكارة أنا ماشي وجام والله غالب بحالة قرالك وقت هنا تربي أنا gabadhu way istaan maxaa raacdeen محمد فارح maxaa wadateen oo raacdeen xilligaas لا حلقة بجاجة يعني jaaja ka raacdeen meeshaas hagee ku tagta bajaajka waxaan ugu dhiganay taleex talaaxa ugu digteen taleexa ugu dhiganay kadib maxaa dhacay kadib waxaa aadnay meeshi hotelka aadnay hotelka inta ku yaalla dahabshiil lebarkeeda ku yaala dabaqa dahabshiil oo ka dambeeya magaciis anuu magaciisa ma aqaan wax boor moo taleex anuu magaciisa ma aqaan عندي محمد فرح ولا لا ما هو يدين تقنا waxaan kaa rabaa maxamed waxaan kaa rabaa arrinkaanu arrin dhacdaa weeye waa ogahay amar ilaahi ku dhacay sax waxaan rabnaa horta si sax ah waa miir qabtaa hadda soo maha amir qaba caafimaadkii waa tan waa ku mahadsantahay barnaamijka sida qayb ka mid ah u qiratay oo u caddaysay inaad gabadha adiga soo waday dabaqana aad saartay hoteelka aad geysay waxaan kaa rabnaa inta kale aad ku darto si uu u fududaado kiiskaagu annagana dhegeyso adiga dhegeyso wax yar لكن دول كذا واحد haa duur ha xilliga hotelka geeyay weliba ay shan facman soo caama shaqada qubbaana ku xilliga hotelka tagteen saac toddoba saacadood waxba raacsan laakiin anigu xilligaas oo gobolada kalena waa cadaan rabto anigu ila saacad anigu muhiim kuma moogta anigu marka adigu aad weyday gabadhana waa inta saac laga joogo markaas deed saac lama gaaro markaas laakiin toddoba saacadood wax jiro دول دول أصبح واسمع marka baxaa qubada kadib bulshada goorma noqosh anigu gabadha markiiba oo la daarashada la geeyay anigu waxaan qornaa gabadha aaway oo roofiid ninkaan wuxuu dhaa gabadha asaga cabsi maana garto firaado laakiin gabadha waa aadayna لما كنت لما قايش fure lama fure waa sideed amara ka xiriirna wata zaman كوعي ده fure waa sideed إيه fartan iyo saddex فرتني يسدح eber lix toban إبر له toban طبعا أيضا لما كنت يشيل inuu lambarkeeda kor ma aqaan lambarkeeda kaa ka wacaysay lambarkeeda teleefkan raadii la koraan umka adig midkaa ka wacaysay kor kama haysid korka ma tan qof bin aad lambarkiisa inaa qabto fiiri adiga dantaada ku jirta inaa wax walba sida yihiin anigu lambar inaa xasuusto danteeda kuma jirto telefoonka la soo qabanaa halkaas lambarka laga siiyaa marka lambarka inaa aad xasuusto ana qofso ma han karto qof bin aad anigu waa istaahid anigu kun lambar ma qaban karto ساعدي سلوك شيء أنت تقع ساعد anigu saacad ma fi fiirin laakiin daba saac lagu jiro bideedka falka markuu dhacay 10 saac lama gaaro أنت سلوك شيء فرق لا فرق dhacay دوس أنا أعتقد gabadha waxay wada joognaba ما قصع حصع موجود hal saac ma dhan xitaa gabadha wada joogna waa taga waxay sheekaysanaa waa kulaan kula gala kaliya I hope inaad soo daawateen muuqaalka wiilkaasi uu ka hadlayo laba su-aal way mudan tahay in la isweydiiyo wuxuu dhahay gabadha wax yar baan sheekaysanay kadib kuleel ayaa i qabtay waxaan u baxay qubays qof dhan oo aad balansatay oo inaad waqti la qaadatay la sheekaysatay rabtay markay timid wax yar kadib kuleel ku qabtay qubays aad weli kabaheeda musqush kuga sheegtay kulliba dadka iga cilmi badanaa taas kasoo jawaabayo tan kale waxay tahay wuxuu dhahay ninka qadada ii keenay ayaa i raacay suu ku raaci karaa ninkani maadaama uu shaqaale yahay shaqadiisa inuu kuu bardarayo miyuu adigu ku raaci karaa kulan raadi karaa tan kale wixii dhacay waxba kama ogiyaa tiri dhicideeda inay daba ka socday maadaama ay shir tahay aadana dambi isku ogeyn inaad kufsi geysatay inaad adi meesha kasoo tuurtay maba taalo sabab ayna u baqdid aa u baxsato
taasi naftirkeeda waxay meesha soo gelinaysaa tuhin kale oo ah inaa meeshaasi lug ku leedahay balse halkan runta ah oo muhiimada oo ku jirta ayaa waxay tahay in uu yahay shaqsiga afkiisa ka qirtay inuu gabadha balamiyey hoteelkana geeyay wixii doonaba ha dhaco oo qadar bay wax kasta ku dhacaa laakiin asaga ayaa balamiyey asaga ayaan afkiisa ka qirtay inuu hoteelka geeyay wixii markaas ku dhacayna asaga unbaa mas-uulka ah sababtoo asagaa meeshii geeyay dhibka kasoo gaaray allaha u naxariista ayaan leenahay tan kale waxaan isleeyahay waxaa laga heli karaa xogta saxda qolada hoteelka in iyo kadib lagu noqdo su-aalana la weydiiyay dad aan isqabin sidee ugu ogolaadeen hoteelkooda sidoo kale siduu sheegay bajaaj ayaan raacnu leeyahay bajaajlihii oo lacagta u tuuran la raadiyo inay ninkan is arkeen sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay inay muddo gaaban is yaqaaneen taasina way dhici kartaa sababtoo ah dee qof laba beri ku yaqaan haddaa aaminto meel ku geed wuxuu kuu maleegaya allah yaclam balse waxaan leenahay gabdhow ka digtaanaada inaad rag meel ugu tagtaan waqti dheer aqoow ama waqti dhow aqoow sababta wuxuu yahay mataqaanid kii ku rabo oo sharaftaada jecel iyo wanaagaada iyo jecel dhab ku haya gurigaada ayuu kugu soo booqanayaa walaashin xamdine qadar ayaa ku dhacday way qadarneed qof kasta meeshuu ku dhimanaya waa la geenayaa iyo qaabka u dhimanayana wuu marayaa asagana hadduu yahay dambiilaha allah subxaana watacaala ayaa soo gacan geliyey xaqana allah soo daahiriyaa leenahay cadaaladana allah ku guuleeyay kiiska xamdi dambiilayaasha dhabtana ilaahay banaanka ha keeno iyadana waxaan leenahay sisadeeda janna ehelkeedana samar iyo iimaan allah ka siiyo